muddadii saacadda ku dhoweyd ee ay dacwaddu socotay tallaabo tallaabo iyo qodobadii la soo maray iyo heer kastoo la marayo waxaa ka muuqatay guddoomiyaha maxkamadduna ay sheegtay oo dee wax ummadda u wada furan ah in mar walba Soomaaliya ay ku guuleysatay laga bilaabo waxaa la yidhaha preliminary objectionka oo diidmadoodii ahayd u horreysay inaanay maxkamaddu ikhtisaas u lahayn lagu xejiyo oo maxkamaddu xukun ka soo saartay 2017 lagu xejiyo halka khadku ka jeexmayo ee parallelka la yidhaah oo ay maxkamaddu diiday Soomaaliya soo jeedinteedii iyo halka laga miiqaayo ama laga jeexayana qaadatay lagu xejiyo doodahoodii ahaa xagga amniga iyo gobolka ayaa ay waxyeelaysaa oo la yidhi nabadgelyo darro ay keeni kartaa ma jirto lagu xejiyo in hore looga heshiiyey ilaa 79kii laga heshiiyey oo Soomaaliyana ka aamustay taana maxkamaddu tiri waxba kama jiraan muddadii burburku jiray oo ay maxkamaddu u qiimaysay Soomaaliya inaanay waqtigaa garteeda naqsin karin marnabana se ayna ka tanaasulin 2005 wixii ka dambeeyey iyo markii ka horreysay dowladda Soomaaliya jirtay marka geedi socodka dacwadda iyo xukunka sida uu isu daba yaal marka aad u fiirsatid boqolkiiba boqol Soomaaliya run ahaantii waa ku guuleysatay equidistance line-ka ayaa laga miiqay oo laga jeexay oo laba ah professional equidistance oo ka ay qaadatay maxkamaddu ah laakiin ay ku samaysay adjustment wax yar boqoliyo markaa 25,000 oo mayl oo square ah ayaa marka haddii si kalena loo dhigo 110 mayl ayaa 11 Kenya ay ka helaysaa oo madaxa meel loogu geliyey si aanay wax maxkamaddu u bixisay serious cut off aanu u dhicin markaad runtii u dhaba gashana ama fikirkii ay ku diideen afartii garsoore ee kale waxaa muuqanaysa in aynu mar walba xaqa ku taagnayn laakiin maxkamaddu dan mooday dacwadda badankeeda iyo badka badeed badankiisa in Soomaaliya ku guuleysato wax yaroo miiq ah oo aan weynayn oo marin ah oo ay adjustment ku samaysay adjustmentkaas haddaynu u qaadano luqadda qalaad weliba minor adjustment lagu sii macneeyey wax yar la yidhi meelun Kenya madaxa u geliya si aanay maaragtay ay go'aanka ka soo baxay maxkamaddu uu noqdo wax dhammaan u cuntama boqolkiiba boqolse Soomaaliya waa guuleysatay geedi socodka qof kastoo loo yara oo akhriya ama sharciga u dhaba gala waa uu fahmayaa meel walba dooda Soomaaliya in la qaadanayo ta Kenyana la diidayo meel walba dooda Soomaaliya inay tahay aasaaskii sharciga ahaa ta Kenyana ay maaragtay tahay midaan sal iyo raad toona lahayn oo xaqiiq ku dhisnay aad iyo aad aan ugu faraxsanahay marka hore inaan soo dhaweyno go'aankii maxkamadda caalamiga ah ICJ go'aan dhaxalgal ah oo taariikh galshay ayuu noqday waxaan kaloo rabaa inaan idin hambalyeeyo saraakiishiina garyaqaanadiina xafiiskayga ra'iisul wasaaraha tiimka uu hogaaminayo abukaatayaasha Sulaymaan Yuusuf Garaad iyo walaalkay Faysal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii farxaday maanta ii tahay inaan tiimkii soo halgamay muddo badanna hawshan ku soo jiray aan u mahad celiyo la'aantiin maanta meesha aan joogno ma gaarnayn dadaal iyo karti iyo hufnaanta aad muujiseen aad ayaan ugu faraxsanahay aniga ku hadlaya magaca shacabka Soomaaliyeed waxaa idin leeyahay hambalyo shacabka Soomaaliyeed oo idinku diirsaday hawsha baaxadda leh ee adag ee aad u qabateen waa soo dhaweynayaa waan ku faraxsanahay waan idin hambalyeynayaa waxaan sidoo kale rabaa inaan halkan shacabka Soomaaliyeed uga sheego muddo ayay arintan la soo jihaadayeen dhammaan shacabka Soomaaliyeed sidaan hore u sheegay gabadha iyo wiilka ku nool Gaarisa Jigjiga Jabuuti Hargeysa Muqdisho dhammaan hawsha aad wadaan way u hanqal taagayeen wayna sugayeen guushan marka guul hal gobol ama laba gobol ay leedahay maana waa guul ay leedahay dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ayna sugayeen ayna u damqanayeen marka saa darteed farxadan waxaan rabaa inaan idinkaga mahad celiyo idinkaga hambalyeeyo shacabka Soomaaliyeed uga hambalyeeyo meel kasta ay joogaan walaalkeen injineer Saalax Allahu naxariisto oo ah injineerkii hawshan maanta qaybta laga hadlayo
dhigaha iyo loolka badda aada u yaqaanay oo contributionkii ugu fiicnaa xagga topografiyada qeyb weyn kasoo qaatay. ilaahay qabrigiisa waasiciyo. shacabka soomaaliyeedna waxaan leeyahay usoo duceeya injineer saalixi inuu ilaahay janatulfirdowsa siiyo. wiilkiisana waxaan leeyahay mabruuq, aabbaha sabr allah naga siiyo, laakiin howl weyn ayuu qabtay Faysal. marka sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo lawyaradeenna walaasheen Muna Sharmaan oo runtii hawshan bilowgeedii qeyb libaaxa ku lahayd ilaa haddana ay daba taagneed. iyadana waa u mahad celinayaa. waxaan kaloo rabaa halkan sida shacabka Soomaaliyeed ay ogyihiin in xukuumaddan dowladdii ka horeysay mudane madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ahaa aabbihii geeyey kiiskaas maxkamadda caalamiga ah ee Hague oo bilowgeedii uu isaga lahaa. waa uga mahad celinaynaa. maanta guusha lagu joogana isagaa hormuud u ahaa. sidoo kale madaxweynaheena maxamed cabdullaahi farmaajo oo isagana maantay soo gaarsiiyey meesha guusha ay maanta taallo. isagana ilaahay ka sokama hadda isagaa iskale. waa u mahad celinaynaa. dowladdii ku-meel gaarkeeda uu hogaaminayay madaxweyne sheekh shariif iyo baarlamaankiisa oo runtii qeyb lixaad leh kasoo qaatay hawshan. sidoo kale ayaan rabaa iyagana inaan u mahad celiyo. sidoo kale dadkii kasoo qeyb qaatay ay ku jirto wasiiradeennii hore Fawziya Xaaji Aadan, iyadana waa u mahad celinayaa. marka haddee intii aan ka tagana waxaan leeyahay waa mahadsantiin aad leeyahay. Ra'iisul sidii aad la socotay ra'iisul ku-xigeenkan uu sharxay kiiska badda Soomaaliya xukunkii shalay soo baxay wuxuu gabagabeeyay gees socodkii dheeraa oo tirada badnaa oo juhdiga badan la geliyay ummadda Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan iyo hoggaankeeda ay kasoo wada qayb qaateen. wuxuuna tusaale dhab u yahay kartida iyo mataqaanaa awoodda dadka Soomaaliyeed iyo hoggaankiisa ku jirta oo uguna jirta inay ilaaliyaan difaacidda qarannimada iyo sovereignty-ga Soomaaliya qaybaheeda kala duwan, ama dhul ha ahaato ama bad ha ahaato ama cir ha ahaato, oo ka hor imaanaysa markastana si xooliyana u jiiraysa qof kastoo damac ka galo in awoodda Soomaaliya iyo dhulbadeedkeeda iyo cirkeeda dhulkeeda guri ka galo inuu qaato. xukunkii shalay soo baxay ra'iisul ku-xigeenkaas fiican u sharxay qaabku uu u soo baxay guushii inta badan Soomaaliya raacday, laakiin qaabkii leenka baseline-ka loo sameeyey ama markii baseline-ka la sameeyay the base points wax la yiraahdo jiro la sameeyo maxkamaddu jurisprudency-geedii ahaa in ay raacdo equidistancy line-ka oo muddada dheer xukunada ay soo saaraysay practice uu ahaa way ka beertay inay ka beertana jurisprudency-ga practice-ka iyo xeerarka UNCLOS ay ku dhisan yihiin iyo ruleska maxkamadda iyo wuxuu dhan wax taageeraya maysan hayn inay ka leexato oo departure-ka gelisay leenka equidistancy-gu. marka eegtid qoraaladii iyo xukunadii hore u soo saari jirtay iyo judgeska ka hor yimid xukunka qaabka leenka loo jeexayo dhammaantood waxay tusayaan moogtahay practice cusub oo maxkamaddu hadda ay samaysay oo la xiriirsan in leenkii adjustment lagu sameeyo. waa wax hadda case Soomaaliya hadda ku cusub yahay, jurisprudence cusub bilaabmay weeye. duruufta ay ku kaliftay inay codsigii applicationadeena ku jiray oo la xiriirsanaa in aan equidistancy qaabkan loogu jeexayo Soomaaliya gudbisay inay ka leexato waxa ku kalifaya macnaha iyadu waxay u bixisay ra'iisul ku-xigeenka serious cut wax la oo meeshan Kenya badii baa ka xirmanaysa duruufo noocaas oo kaleeta. marka dooda Soomaaliya ay geysatay hadda xukunka waa soo baxay, xukunkana wax ka furan oo appeal lama jiraan. marka la eego xeerka uu ku dhisan yahay ICJ-da ay ku dhisan tahay, laakiin waxa ka furan kaliya waa labada shayna hadda waa mid interpretation-ka la xiriirsan iyo dib u eegis in lagu sameeyo. labadana hadda anaga uma socno waana aqbalnay xukunkii siduu uu yahay. walaalaheen Kenya maanta madaxweynahoodii speech-yadii iyo hadalkii ilaa shalay socday ma fulinayno iyo mataqaanaa iyo howlaha noocaas kale taa waa socda, laakiin anaga waxaan loo sugay waa milkiyadda dhulka inta yarta oo nalaga reebay. marka laga tago milkiyaddii dhulka Soomaaliya loo sugay, haddii milkiyaddana loo sugayna ownership-kii Soomaaliya ku wareegay oo murankii markii hore waxaan tahay stage muran aan ku jirnay, haddana waxaan joognay stage lahaansho ah
marka stageka lahaanshaha wuxuuna siinayaa in cid kastoo damac ka geli kartana dee sideeda inaan ula xisaabtano international loogu u raacno inay soo faragashato dowladda Kenya inay xukunka aqbashana aan ku dadaalno annagoo marayna charterka axdiga qaramada midoobay oo Security Council-ka la isticmaalay ilaan articleska maxkamadda dhisayo 94 iyo 92 ka bilaa 96 oo xeerka axdiga qaramada midoobay wuxuu tilmaamayaa haddii xukunkii la fulin waayo measureska Security Council-ka uu sameyn doono marka kaliya waxaan uun xaqiijinaynaa horta maanta inaan leenahay xuduud badeed caalami ah waxa waaye waa wax weligeed aan dhicin waaye xuduud badeed caalami ah oo annaga iyo Kenya noo yaala oo caalamka dhan uu aqoonsan yahay oo maxkamadda soo saartay waa the biggest achievement oo aan gaarnay weeye markii maxkamad ay tagtana waxa weeye markii ay maxkamad ay tagtana waxa weeye arrintu kulley sidaad wax u rabtay uma wada helaysid marka waa ku qanacsanahay runtii xukunkaas waxaan kuga noqonayaa oo keliya arrinta istiraatiijiyadda u baahan runtii istiraatiijiyad bay u baahan tahay sidii go'aankan uu dhaqan geli lahaa shalay markaan maxkamadda tageynay bad lagu muransan yahay ayaa jirtay bad xuduudeeda la yaqaano ama la ogol yahay ma jirin waxaan la soo laabanay bad lagu muransanaa inteeda badan amaba dhammaanteed marka laga reebo qaybta yar laga jaray in ay hadda sharciyan annaga gacanteena ku jirto marka taas waa libin in loo arko waye iyo gurul ra'iisul wasaare aad u mahadsan tahay iyo tiimka khubarada awlaalaha iyo xeer ilaaliyaha iyo dhammaan waa idinkaga mahadcelinaya mar labaad waa run hawl bilow hadday noo tahay sidaan ku ballanayna ballanteenu waa markaad soo noqotaan inaad waqti iyo balaan ila timaadaan iyo budget iyo istiraatiijiyada saan u dejin lahayn dhinacayga diyaar ayaan ka ahay waxaan mar labaad idin leeyahay waa mahadsantihiin waa guulaysateen waa guulaysanay dhammaan shacabka Soomaaliyeedna wuu guulaystay waxaan idin leeyahay marka ugu dambaysa waxaan rabaa inaan Allah subxaanahu wa tacaala u mahadceliyo oo guushaan na siiyey bilowga noo ah ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu guusha noo dhammaystiro annagoo nool oo caafimaad qabnana aan helno baddaas oo khayraadkeeda ilaahay una tuso billahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ayad ayaa u mahadsan